ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa xoreynta deegaanada bari ee gobolka Galgaduud ayaa kalinkii dambe ee maanta si nabdoon kula wareegay deegaanka Lebidulle oo in ka yar 16 kiiloomitir u jira magaalada Ceel la helay ee gobolka Galgaduud. howlgalkan oo ah mid aad u baaxad weyn ayay hogaaminayaan wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur, taliyaha ciidamada xoogga dalka General Odawa Yuusuf Raage iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye oo ay furinta hore ku weheliyaan xildhibaanada federaalka iyo kuwa Galmudug ku matala deegaanada howlgaladan ka socdaan oo ugu horeeya gudoomiyaha guddiga difaaca baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Yuusuf Gelle Ogaas. ciidamada qalabka sida iyo kuwa deegaanadan oo kaashanaya shacabka ayaa isku fidiyay deegaano hor leh iyagoo ku socda qorshe istiraatiijiyadeed oo cadawga lagu naafaynayo isla markaana lagu yareynayo khasaaraha. waxaana kooxda miinabaarka ee ciidamada oo howlgalkan kaalin baaxad leh ka qaadanaya ay ku guuleysteen inay fashiliyaan miinooyin argagixisada ay ku xirtay wadooyinka soo gala deegaanada howlgaladan ay ka socdaan oo intooda badan ay ka soo saareen halka qaarkood lagu qarxiyay isla goobta. dhaqaaqa ciidamada oo shacabku ay si weyn ugu riyaaqsan yihiin ayaa galabta furinta hore waxaa soo gaaray deeqdii ugu weyneed ee ka imaatay shacabka reer Dhuusamareeb iyo maamulkooda kuwaas oo garab taagan ciidamada iyadoo cunto qalalan oo diyaarsan iyo biyo ay saraakiisha ciidamadu kula wareegeen aagaga hore. waxaan joognaa deegaankii aan ku magacaabnayn oo Ceel Garas iyo dhulka hoos imaanayay farxadan lama soo koobi karo. insha Allah waxa waaye waa kabahan la dul marnay nimankii waana ka daba tagi doonaa hadii Ilaahay yiraahdo raadigoodii ayaan sii baxsanaynaa. insha Allah degmo walba oo ku taala meeshan oo ka soo hadli doonaa hadii Ilaahay idmo mana ka hari doono. dadka waxaan u sheegaa deegaanka waxyaalo marar badan la idin yimid oo la ka laabtay markii la ka laabanayo maahan looma kala harin haday deegaankii tahay iyo dadkii u dhashay haday tahay iyo haday tahay ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed iyo maamulkii marka dhammaan waxay ila tahay markaan heegan soo qaadanay waan idla joogi doonaa hadii Ilaahay idmo ma la ka laaba doono. nimankaas nafla caariga iyo idan maran yaan la marhabaabin waa dareensanaa waxyaalaha dadka ay ka dhaadhicinayaan oo ah in dadka dariska la oo qabiilaadka waa ku soo duulayaan waa ku soo socdaan inay leeyihiin wax ka jira male annaga u dhalanay annaga hor socona annaga nala socdaan. marka waxaad ogaatiin dadkiini ka maqnaay iyo dawladii oo kaabaysa inay idin soo socdaan. duqa Dhuusamareeb Macalin Cabdiraxmaan Geedo Qorow iyo qaar ka mid ah madaxda ururada bulshada rayidka ayaa ka waramay kaalintooda garab istaaga ciidamada. maanta halkaan waxaan ku nimid annagoo isugu jirna bulshada caasimada degan oo ururka haweenka iyo dhalinyaro iyo odayaal iyo culimo u diin intaba ka kooban oo runtii aan codkoodii aan ku hadlayo ciidanka xoogga ayaan taa kula u keenay xoolo nool oo soo socda iyo daray food badan oo gaarigaan saaran iyo saanad badan oo ciidanku u baahnaa horaan u ballan qaadnay inaan ciidanka naftanada iyo maal waxaan heli karnaba la garab taaganahay ayagana waxaan ugu hambalyeynaa guusha isdaba jooga oo maalin walba Ilaahay u gaarsiinayo Ilaahayna waa ugu xamdi naqaynaa inuu sharaftaasna mankaniyay. marka dhammaanteena waxaan garab taaganahay halgamayaasha naftooda iyo maalkooda iyo dhiigooda dheecaankooda u horay inay ku difaacaan shacabka Soomaaliyeed ee cadawga u diiday hurdada ee xasuuqa u geysanayo. hadda waxaan joognaa jiida ugu horeysa ee shabaabku ay ay ku sii dhuumaalaysanayaan meelaha hawdka ah. ciidamadana waa u mahad celinaynaa deeq iyo intii ka dhaxaysa saanada iyo wax walba oo dhan waxaan la garab taaganahay ciidamada dawladda. ciidamada howlgaladan ku jira oo ay ka go'an tahay in shacabka Soomaaliyeed laga dulqaado dhagarta ragaadisay ee argagixisada ayaa ugu bishaareeyay shacabka ka war dhowraya dhaqdhaqaaqyada socda in maalmo kooban lagu gaari doono magaalooyinka Ceel la helay, Ceel Garas, Ceel Qooxle iyo Ceel Buur oo argagixisada ay durbaba bilowday inay ka urursadaan agabka. marka waxaan leeyahay mar haday isgarabsadaan xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadkooda shacabkooda haday isgarabsadaan waxaan u malay doonaa saacada ku qaadan mayso. waa dharaarta gobonimo noogu soo dhawaato dhalinyaradii loo xulay dhaqso loogu tababaray haddii ay dhaqaaqaan amarka u dhaxeeyay waajibka isu dhaafaan dhayal laguma soo galo. Soomaaliya Allahu Akbar. Cabdullaahi Warsamo Roble, warbaahinta qaranka, Dhuusamareeb.